Bismillahi Rahmaani Rahiim. Soo dhawaada arday halkani waxaan ku qaadanaynaa cashirkeeni ugu horeeyay ku saabsan maadadeeni ahayd pathology, general pathology. Casharada waxay noqon doonaan kuwa isku xiga haddii Ilaahay idmo. Casharka ugu horeeya marka waxaan ku baran doonaa general pathology-ga hordhiciisa introduction-ka yaa baran doona insha Allah. Casharka ugu horeeya waxyaabaha ku baran doona marka leen objectives waxay noqon doonaan danaha casharkan aan u baranayno ujeedooyinka aan u baranayno sidoo kale ardayga markuu chapterkan ama cashirkan uu naga dhamaado waxyaabaha uu awoodi doono u fahmi doono waxa ka mid noqon doono inuu qeexi karo divine pathology maxaa la inaan barano labo inaan barano core aspects of disease in pathology marka laga hadlayo pathology-ga qaybaha iyo waxyaabaha laga barto iyo waxyaabaha muhiimka ah maxay yihiin pathology-ga laga barto saddex waxa baran doonaa qaababka loo sameeyo baaritaanka wax loo yaqaano diagnostic techniques markii pathology-ga baaritaan uu sameynayo pathologistaha qaababka iyo waxyaabaha uu isticmaalayo maxay yihiin afar waxa baran doonaa sababaha maxaa loo kala qaybiyaa qaybaha sababaha ay leeyihiin qodobka ugu dambeeyana waxa baran doonaa outcome and consequence of disease wax loo yaqaano cudurka markuu dhaco maxaa ka dhalanayo natiijo ah maxaa ka dhalanayo oo consequence ah complication ah iyo arki doonaa haddii Ilaahay idmo qodobada shanta meesha noo qoran qaar waxa ku baran doonaa qaybaha hore chapterka hore oo maanta akhrin doono qaybaha dambana waxa ku baran doonaa lecture-ka labaad haddii Ilaahay idmo okay hadda imaan pathology qeexitaankiisa pathology maxaa lahaa pathology waxa lagu qeexaa waa study of disease by scientific method waa barashada cudurka anagoo u baranayna qaab cilmiyeysan qaab scientific ah yaa waxa loo yaqaanaa pathology-ga ereyga pathology wuxuu ka imaaday erey Latin ahaa patho macnaheedu ahayd disease iyo psychology oo macnaheedu uu yahay study marka wuxuu isku noqon doonaa waa barashada cudurka in cudurkii aan barano okay disease may be divided as cudur waxa lagu qeexaa marka la qeexayo waa variation structure and function of any part of the body waa in aan barano wax kasto khalad ah oo ku dhaco normal ah muuqaalka jirka dhismaha jirka qalfoofta jirka iyo sidoo kaleeto shaqada jirka isbedel ku dhici kara waxa loo yaqaanaa ama khalad ka dhici kara waxa loo yaqaanaa cudur lagu magacaabi karaa maadadeena marka la baranayo pathology-ga waxaa khasab ah ardayga inuu fahamsan yahay maadadii ahayd anatomy and physiology sababtan waxay tahay anatomy and physiology waxa lagu baran jiray barashada qaab dhismeedka jirka iyo sidoo kaleeto physiology-ga shaqada jirka lagu baran jiray halka pathology-ga asiga lagu barto khaladaad ku dhici karo structure-ka iyo shaqada jirka marka qofka hadduu garanayo anatomy-ga waxa u sahlanaanaya inuu fahmi karo wax loo yaqaano pathology-ga cudurada waxaa loo kala saaraa classification of disease cudurada waxaa loo kala qaybiyaa laba qayb oo weyn qayb waxaa loo yaqaanaa congenital waa qaybaha lagu dhasho oo qofka calooshoodiis uu kala yimaado uu ku dhasho qaybta labaad waxaa loo yaqaanaa acquired kuwa la kasbado ama qofka markuu dhasho kadib kuwa ku dhici karaan yaa loo qaybiyaa kuwa acquiredka marka waxay sii leeyihiin faracyo sida qayb loo yaqaano inflammatory kuwa caabuqa la xiriira sida waxaa ka mid noqon kara traumada oo jugta waxyaabaha la xiriira ku imaan kara infectionada oo ilmo qabatada jeermiska ay sababi karaan ama immune-ka kuwa difaaca jirka la xiriira oo difaaca jirka ka dhalan karo xarafka b oo acquired ka farcam waxaa loo yaqaana neoplastic waxaa loo yaqaanaa waa kuwa kansarka la xiriira sida tumor cancers sida burooyinka kansarka ah oo jirka qaybihiisa kala duwan kasoo bixi kara qaybta saddexaad waxaa loo yaqaanaa degenerative oo loola jeedo waa kuwa la xiriira gabowga iyo duqnimada iyo da-da la xiriiro iyo ayagana loo yaqaanaa in qofka markuu weynaado طبعا xubnihiisii waa daciifayaan shaqadii qaban jireen ma qaban karaan qofkii marka waxa u nuglaanayo u sahlanaanayo in cuduradii qaarkood ay kusoo degdegaan qodobka afraad waxaa loo yaqaanaa dia metabolic oo la xiriira dheefshiidka sida cudurada waaweynka ah chronic ah oo dheefshiidka ku dhici karo ama ha noqoto sokorta ama ha noqoto cudurada kale chronic ah oo dhammaan systemka GIT ku dhici karo ama guud ahaan waxyaabaha dheefshiidka ka qayb qaato sida xubnaha pancreaska waxa loo yaqaan liverka la xiriiro waxaa kaloo jiri karo qodobka shanaad waxa loo yaqaan iatrogenic waa kuwa daawooyinka iyo caafimaadka la xiriiro ee sababaan ay qasbi karaan ayagana waxaa loo yaqaan iatrogenic marka cudurada waxaa u qaybin laba qayb oo two main classes mid kastana waa ka oo qaybaheeda ay leedahay pathology marka la sharxayo oo la baranayo la daraaseynayo waxaa jirto four aspects of disease cudurka afar jiho afar dhinac oo laga fiiriyo waxa ugu horeeya waxa loo yaqaan etiology cudurkana ka barano maxaa sababay waa maxay cudurka wax mas'uulka ah oo keenay laba waxa baranayna waxa loo yaqaan pathogenesis awoodda jeermiska uu leeyahay in jirkii uu soo galo cudurkan uu sababo ya waxa loo yaqaan pathogenesiska
dabcan haddii cudurka uusan cudurada qaar ama jeermisyada qaarkood markay jirka ay soo galaan awood ma lahan ay ku sababi karaan clinical significance ama astaamihii cudurka u lahaa ama abnormality ay ka sheekeenin structure-ka iyo shaqada jirka ku dhici jiray ma sababi karaan oo jirka soo galayaan laakiin difaaci jirka yaa laga yaabaa ama physiological in jirka uu iskaga celiyo wixii jirka soo galay marka pathogenesis waxaa loo yaqaanaa awoodda jeermiska ama waxa cudurka sababi lahaa ay u leeyihiin in cudurka ay keenaan morphological changes waxaa loo yaqaanaa isbeddel ku dhacayo jirka muuqaalkiisii iyo shapekiisii qodobka afraad waxaa loo yaqaanaa functional disorders and clinical significance waa shaqadii jirka uu qaban jiray xubnihii shaqada ay qaban jireen waa gabayaan maadaama cudur uu soo galay waxaa kaloo soo muuqan doona waxa loo yaqaano clinical significance astaamihii cudurka uu lahaana bannaanka imaanayaan qodobadaas qadaa dhigayna marka mid u arkayna waxaa nooga horreeya waxa loo yaqaano etiology maxaa loo yaqaanaa etiology waxaa loo yaqaanaa means waa cause of the disease waa cudurka wax sababa waxaa loo yaqaanaa etiology if the cause of disease noun haddii cudurka wax sabab la yaqaano sababta waxaa u naqaanaa primary etiology aan leenahay waa cudurka wixii sababay oo tooska mas-uulka uu ahaa haddii aanan garanaynin cudurka wax sababay oo unknown uu yahay waxaa loo yaqaanaa idiopathic lama yaqaano cudurka wax keenay knowledge and discovery from primary cause remain backbone which diagnosis can be made disease understood and treatment developed waxaa leeyahay cudurka wax sababay oo primary cause-ka inaan ogaano waxay lafdhabar u tahay baaritaan inaan sameyno oo sax ah sidoo kale waxay asal u tahay cudurka qofka ku dhacay inaan fahno sidoo kale waxay lafdhabar u tahay oo muhiim u tahay daaweyntii bukaankan oo fududaanaysa dabcan hadafka shaqaalaha caafimaadkan wuxuu yahay in bukaankii ee u imaaday ee durbada weeyaan bukaankii uu raysto inuu raystana waxaa ka horeeyo in horta garanayno cudurkan qofka maxaa ku sababay markaa sababta ogaano waxaa easy noqonaya baaritaankii sidoo kaleetana waxaa noo fududaan doona wax loo yaqaana dawadii two major class of etiology factors factorada la xiriira sababaha labaa loo kala saaraa haddayna aan soo aragnay qayb waxaa loo yaqaanaa genetic waa waxyaaba la xiriira dhexaltooyada oo waalidiinta laga dhaxlo sida cudurada qaarkood oo kale qoysaska qaar dhexdooda ka jira waxay iska dhaxlaan from generation to generation oo jiilba jiil kale kusii dhaxli karaa kuwa labaadna waxaa loo yaqaanaa micnaheedu waxay ka dhigan tahay kuwaas waa kuwa lagu dhasho kuwa labaadna waxaa loo yaqaanaa acquired waa kuwa la kasbado oo qofka markuu dhasho kadib ku dhici karo kuwaasna waxaa ka mid noqon kara infectioska oo ilmo qabatada jeermiska badan oo faafa nutritionalka noqon karo kuwa nafaqada la xiriira ama nafaqa darrada ama cayilka kuwa chemicalka la xiriira waxyaabaha sunta oo halista qofka jirkiisa gali kara saliska iyo guud ahaan jirkan dhaawac gaarsiin kara ama kuwa physicalka oo muuqdo sida jugta iyo shiralka iyo waxyaabaha la midka ahaa etiology-ga waxaa loo yaqaanaa waa cause of disease waxaa jira waxa loo yaqaano etiologic agent waxaa loo yaqaanaa factor responsible for the lesion of disease state waa waxa mas-uulka ka ah qofka inuu nabar ku dhaco ama cudurka uu ku dhaco ama wixii cudurka sababtiisa mas-uulka ah waxaa loo yaqaanaa etiologic agent yaa loo yaqaanaa kuwa marka waxay noqon karaan wax oo bacteria oo kale wuxuu noqon karaa virus wuxuu noqon karaa fungi wax alaalada wixii oo jeermis oo cudurkii mas-uulka ah oo sababi karo yaa noqon karaan sababaha marka etiology waxaa loo kala saaraa predisposing cause of disease waxaa loo yaqaano iyo exciting cause of disease predisposing cause of disease waxaa loo yaqaanaa faktorada qofka u nugleyn kara u jilcin kara inuu cudurkii ku dhaco laakiinse toos mas-uulka aan uga ahayn inuu cudurkii dhaco waxyaabahaas marka waxaa ka mid noqon karo dham weatherka cimilada qabowga kaleeto waxaa ka mid noqon karo poor ventilation hawada inay xuntaho kale waxyaabahaas marka hawi xumada inuu ventilationka u liito uusan fiicnayn ama cimilada inay qabow tahay ama bus ay tahay ama inay kulushahay intaba dee cudur oo ay sababaan oo waxaas cimilada ku dhaco toos ma jiro laakiin waxay nugleyn karaan ay sahli karaan problemo ku dhici kara respiratory-ga iyo sahli karaan inuu dhaco qaybta labaad waxaa loo yaqaanaa exciting cause of disease waxaa loo yaqaana cudurka wax tooska u keeno waxaa loo yaqaanaa factor which are directly responsible for disease waa waxa tooska mas-uulka ugu ah inuu cudurkii dhaco oo meelna aan soo maraynin sida waxaa ka mid noqon kara hypoxia oo kale hypoxiada waxaa loo yaqaanaa waa oxygenka inuu yaraado oo qofkii oxygen la-aan ay ku dhacdo iyo sidoo kaleeto jirkiisa haddii qofka ay soo galaan walxo chemical agentiska ah ama waxyaaba kiimika ah oo saliskii dili karo oo dhaawici karo almuhim predisposing cause of disease-ka iyo exciting cause waxay kula duwan yihiin predisposekana toos cudurkii ma u keenaan laakiin waa nugleyn karaan oo waa sahli karaan qofka inuu cudurkii ku dhaco exciting cause-kana waa wixii tooska mas-uulka ugu ahaa dhicitaanka cudurkana mas-uulka ahaa disease can be caused by other environmental factors or genetic factors cudurka waxaa toos u keeni karo waxyaaba deegaanka ka imaado oo dabcan aan u naqaano waxyaabaha communicable disease-ka loo yaqaano mostly waa cudurada deegaanka ka dhaco qaybta labaad waxaa loo yaqaanaa genetic factors waa waxyaabaha dhexaltooyada lagu kala qaado
ama labadooda combination ah isku jiro cudurka ayaga keeni karaan. marka labadooda kala qaadayna waxa kormarayna qaybta qood oo loo yaqaano environmental factors ka kormarayna. hadda ka bilaawno marka environmental cause-ka waxa loo yaqaanaa environmental cause of disease are many and classified into macnaha kuwa deegaanka yimaada oo badan yihiin waxaan loo kala saaraa qaybahan. waxa ugu horeeya waxa loo yaqaan physical agentska waxyaabaha la taaban karo oo qofku dhici karo oo tangible-ka ah, chemicalska waxyaabaha chemicalska ah oo warshadaha iyo kiimikada guryaha laga isticmaalay iyo waxaas ay kamid yihiin. nutritional deficiency and excess nafaqada inay yaraato ama inay badato oo sida loo baahnaa qofka cuntooyin qaar inuu badsado. infection and infestation waxyaabaha ilma qabatada jeermiska ah oo faafa ay kuwa jirka banaankiisa ku noolaan kara oo infestationska loo yaqaano. immunological factors oo kuwa difaaca jirka quseeyo iyo psychological factors kuwa dhimirka aqliga ku dhici karo ee loo yaqaano. hadda kuwaas marka si sharaxno waxa ugu horeeya physical agentska. physical agentska waxa loo yaqaanaa waxyaabaha caadiga loo arki karo oo qofka jirkiisa ku dhici karo. kuwaasna waxaa kamid ah traumada oo joogto ah, waxaa kamid ah radiationka waxyaabaha la xiriira shucaaca iyo ilayska zaa'idka ah sida kan qoraxda, kan raajada, kombiyuutarada qaarkood la isticmaalo kaleeto waxay la gaarsiin karaan. extreme temperature oo kaleeto markay cimilada daran tahay ama ha noqoto qabow zaa'id ah ama kuleyl zaa'id ha noqoto. waxaa kaloo jiri karo electronic power korontada oo kale. kulligood kuwa waxay noqonayaan saameyn ku yeelan karaan qofka korkiisa oo kulligood awoodi leeyihiin haddii nooc ka mid ah jirka uu soo gaarana wuxuu ku sababi karaa jug ama wax physical agent ah oo la taaban karo oo la arki karo iyo qofkii ku sababi karaa. qaybta labaad waxaa loo yaqaanaa chemicals ama chemical agentska. kuwani badanaa waxaa loola jeedaa qofka inuu badsado shay kiimika ah oo asal ahaan loogu talagalay in la iska ilaaliyo oo dadka ay ka taxadiraan. waxaasoo kale waxaa kamid ah drugska dabcan waa midi laba af leh, marna cudurka lagu daweeyaa marna waxay dili karaan oo qofka haddii xataa overdose uu qaato daawadii intii loo baahnaa uu ka badsado laftooda waxyeelo keeni karaan. waxaa kaloo jiri karo industrial process warshadaha markay shaqeynayaan qashana ka soo haro biyo isticmaalaan walxaa ka soo harharaadi ah waxyaabahaas ayagana halis waayo oo shaqada warshada ay ku socoto haddii qofka jirkiisa ay soo gaaraan ama uu ku neefsado ama wixii la midka ahaa. ama guryaha kiimikada laga isticmaalo oo cayayaanka loo isticmaalo sida jiirka, baranbarada, waxyaabaha la xiriiro kaneecada. dabcan kulligood waxaa loo isticmaalaa waxyaabo sun ah oo chemicals ah oo kala duwan haddii qofku ku neefsado ama jirkiisa ay soo gaaraan ayagana waxyaalo badan ay keeni karaan. kuwaas kulli marka waxaa loo yaqaanaa waa chemically induced injury yaa lagu magacaabaa dhaawacyada iyo dhibaatooyinka ay keeni karaan walxaha kiimikaadka. inta badanna waa caan markii la fiiriyo maalmahan dambe oo la arkaa dad badan oo waxyeelo ay soo gaadhay. They begin to cause damage as soon as they touch the skin or respiratory tract. tusaale ahaan waxyaabahaas kiimikada ka sheekeynayno dhaqso markii jirka usoo gaaraan maqaarka, indhaha, tubada neef mareenka, tubada dheefshiidka, digestive tractiga loo yaqaano waxyeelo daran ay gaarsiin karaan markii meelahaas ay soo gaaraan. biro waxaa jiro oo ayagana culus oo qaarkood dawooyin loo isticmaalo oo ayagana dhibkooda wataan waxyaabaha oo metaliska loo yaqaano. tusaale kale waxaa jiri karo effect of paracetamol on alcohol on the liver. saameynta ay ku leeyihiin maadada loo yaqaano alcoholka iyo paracetamolka oo daawada aan naqaano oo isticmaalo qanjibinta iyo xanuunka labadaba saameyn daran waxay ku leeyihiin beerka. ilaa sababtu waxay ahayd beerka wuxuu ahaa xubinta kaliya ah jirka sunta ka saara. shaqadiis waxaa kamid ahaa digestionka marka la fiiriyo wuxuu soo diyaa dheecaan bile loo yaqaano oo metabolismka lagu ku leeyahay. marka haddii oo intuu shaqeynaya shaqada ay ku cuslaato xamuul ay ku noqoto sababtan ay tahay qofka paracetamolka inuu zaid u isticmaalay ama khamriga aad u isticmaalay beerka dhaawac soo gaaraya. mana toxic chemicals are metabolized in the liver. waxyaabo badan oo sun ah waxaa lagu metabolize gareeyaa oo lagu shiidaa oo lagu faa'iideystaa beerka. excreted in the kidney waxaan laga sii saaraa keliyaha qashin saara. as a result these organs are susceptible to chemical injuries. saas darteed marka keliyaha iyo beerka labada waxay u nuglaanayaan waxay khatar u yihiin in labadaba ay xanuunsadaan dhaawac uu soo gaaro maadaama beerkeena suntii kow as uu wajahayo keliyihiina ay saarayaan marka taasoo dhaawac u gaaraa maadaama labadii xubin jirka u baxay labadaba ay yihiin. qodobka saddexaad waxaa loo yaqaanaa nutritional deficiency and excess. nafaqada inay yaraato ama inay badato. deficiencyga badanaa waxaa ka dhalan kara ama uu ku imaan karaa poor supply qofka cuntada inay ku yartahay asal ahaan. wuxuu ka imaan karaa interference with absorption nuugitaanka inuu yar yahay oo tusaale waxaa kamid oo kaleeto cuntadii markii caloosha ay degto la shiido waxaa la geeyaa qaybta loo yaqaan small intestine-ka asaa marka wuxuu sameeyaa wax loo yaqaan absorption qaybtiisa kore. haddii markii qaybtaas buro ay ku taalo ama obstruction uu jiro kaleeto waa iska caddahay meeshii waxaa ka dhacaya oo faragelin ku saabsan absorption inuu dhici waayo ama inefficient transport ama cuntadii marka absorption lagu sameeyo dabcan dhiiga lagu daraa dhiiga uu qaada wuxuu geenaa saliskiina ka faa'iideysanayaan
marka haddii transportiga dhiigga asan uu qaadi waayo saliskii daawadii cuntadii ay gaari weyso idin dhibaato kaleeta waa ama waxaa jiri karo defective utilization isticmaalkii cuntada inuu wax khalkhal gelinayo oo diiday inay jiraan waxaasoo dhan marka waxay sababi karaan waxa loo yaqaan deficiency inay dhacdo kadalika sidoo kale waxaa lamid waxa loo yaqaana excesska markii cuntada qofka intii loo baahnaa uu ka badiyo وعيلة طبعا عيل كنا وحنقول لنا عذر فرا بدل مركل هذا ما في عنا قلنا فرد حلوي قانا infection infestation infection هذا حاكم مدي فيروس كبكتيريا ذا فنجاي برزوها متزوها كل جود حلوي قانا وحيابا المقاومات هذا عذر صاوي كري كجران they may also do by causing cell destruction directly in the virus infection marka infection jirka usoo gala karo wuxuu samayn karaa inuu burburiyo oo baabi'iyo si toos ah saliskii jirka tusaale waxaa ka mid cudur waxaa jira loo yaqaano poliomyelitis oo dabaysha aan naqaano virus waxaa keen loo yaqaano poliovirus oo dabcan qofkii curyaan ka dhigo saliskan baabi'inayo ama waxaa jiri kara parazoal infection parazoal la xiriiro oo malaria sababa dabcan plasmodium si gaar ahaan marka la sii fiiriyo marka infectionada waa kuwaas oo kaleeto infestationadan hadda nooma qorno laakiin dabcan waxyaabaha maqaarka korkiisa ku nool yaa loo yaqaanaa sida injirto kale waxyaabaha la midka ah oo lafteedii dhiiggiina jaqi karto qofkan cuncun ku sababi karto cudurrada faafin karto dhibaatooyin badan keeni karto qodobka shanaad waxaa loo yaqaanaa immunological factors waxyaabaha la xiriira difaaca jirka immune process is essential difaaca jirka waa daruuri marka la fiiriyo wuxuu noo qabtaa protection against microorganism wuxuu naga difaacaa waxyaabaha ilma qabatada ah oo jirkeena soo weerari karo waxyeelada la gaarsiin karo isla kale waxyaabaha loo yaqaano parasiteska ku dulnoolayaasha loo yaqaano sida goryaanada ay ka mid yihiin si kastaba ahaatee difaaca jirka wuxuu noqon karaa mid abnormal ah wuxuuna sababi karaa isla asiga laftiisa wuxuu keeni karaa wax loo yaqaano cudur haddii tusaale ahaan kala dhexdiisa isu weeraro waxay ka khaldan yihiin abnormalitiska marka difaaca jirka uu samayn karo waxaa ka mid ah wax loo yaqaano hypersensitivity reaction arrimaha loo yaqaano xasaasiyadda jirka inuu falcelin sameeyo oo la xiriirto inuu wax dareemo ama hormoono qaar aan loo baahnayn in dhiiggii lagu soo fasaxo oo la soo deeyo arrintan badanaa waxay dhici kartaa waa excreted immune response to antigen in jawaab celin ay ka tahay difaaca jirka uu ka jawaab celinayo antigen ama wax foreign ah inay jirka soo galaan tusaale waxaa ka mid ah bronchial asmada ama neefta ku dhacda tubooyinka hawamareenka waxay dhici kartaa oo wacan sababtan ay tahay markii difaaca jirka uu ka jawaabayo markii oo qofka jirkiisa ay soo galaan uu ku neefsado walax oo balloon ah sida wasakh bus waxa noocaas oo ku neefsado jirkii asoo la dagaalamayo wax jirka soo galay oo foreign-ka ah qofkii markaas oo kale waxa ku kacay neeftii sababtana jirka wuxuu sameeynaa wax jirka soo galay uu diidan yahay oo san ogolayn qodobka labaad waxaa ka mid ah immunodeficiency waxaa loo yaqaanaa difaaca jirka inuu yaraado hoos u dhaco sababtan waxay tahay uu u yaraanayo cudurro waxaa jiri kara difaaca jirka yareeyo oo xanibi karo sida cudurka loo yaqaano aidiska kaleeto aidiska markuu dhaco difaaca jirka uu yaraado wuxuu horseedi karaa qofka inuu u nuglaado susceptible u noqdo to different disease cudurro fara badan dadka aidiska qabo afka nabraa kaga soo baxo maqaarka nabraa kaga soo baxo korka cuncunayo qofkii shubana ku dhacayo GAT problem qunfaca sameynaya qofkii fiiraha xanuunayo meel u fiyoweynaysa ma jirto sababtan waxay tahay cudur kasto oo environment-ga laga heli karo qofkii inuu ku dhaco waa sahlanaana hadduusan cunto fiican qaadanin hadduusan daawada HIV qaadanin khatar badan soo wajahaysa marka nuxurka mawduucan waa ka leenahay waxay tahay markastoo difaaca jirka uu yaraado hoos u dhaco cudurradan ayaguna badanayaan oo nuglaanayaan maadaama difaaci awalniga difaaca jir meesha ka baxay qodobka saddexaad waxaa loo yaqaanaa autoimmunity waxaa loo yaqaanaa waa abnormal immune reaction difaaca jirka inuu falcelin khaldan sameeyo oo kaga soo horjeedo the selfie antigen of the host awal waxaan naqaanay difaaca jirka inuu kaco oo reaction sameeyo laakiinse waa goormee markay banaanka wax foreign ka yimaadaan markaan laakiin wax banaanka imaanaya ma jiraan isla jirkii saliskii antigenkoodii qaarkood oo jirkii gudihiisa ahaa ayaa jirka qaybo ka mid ah difaaca jirka wuxuu u arkaa inuu cadow yahay difaaca jirka is weerarayo kadibna meeshaas waxaa ku burburaya isla jirkii qaybo ka mid ah taan waxay keenaysaa wax loo yaqaano qofka in cudur ay ku dhacaan loo yaqaano autoimmunity therefore autoimmunity waxaa loo yaqaanaa waa hypersensitivity reaction waa falcelin jirka uu sameynayo oo kaga falcelinayo jirka dhexdiisii oo loo yaqaano self antigen auto macnaheedu waa self immunity waa difaaci jirka marka jirkii asiga is weeraraya is laftiisii asaa cadow isku noqon doono tusaale marka maxaa ka mid noqon karo type 1 diabetes mellitus oo kaleeto sokorta nooceeda koowaad badanaa waxaa lagu tiriyaa inay ka mid tahay cudurrada loo yaqaano autoimmune destruction difaaca jirka in la weeraro asiga is burburiyo wuxuu weeraraa meel loo yaqaano beta cells of islet langerhans of pancreas cells ka tirsan pancreaska oo mas'uulka ahaa in insulinta la soo deeyo yaa la weerari doonaa marka la weeraro la burburiyona dabcan pancreaska waxaa ku dhici doona inuu soo deyn waayo insulin ku filan oo sufficient ah
ama waxaa dhacaysa haddii lasoo diiyo xataa insulinta inay noqon weyso mid oo macnaha active ah oo wax bedeli karta inay noqon weyso yaa dhici doonto qodobka ugu dambeeya waxaa loo yaqaanaa psychological factors waxyaabaha la xiriira psychologiga ama dhimirka ama quseeya dabcan caqliga qofka mental stress imposed by condition of life badanaa stresska iyo walaaca waxaa khasbi karo sababi karo nolosha waxyaabaha quseeyo gaar ahaan wadamada warshadaha leh teknolojiyada ay hormartay stresska iyo walwalka ku badan yahay maadaama iimaan aysan lahayn gaalay u badan yihiin qaarkood intooda badan aan dhaho ama problemo kaleeto nolosha ay soo wajihi karto kuwa marka waxay qasbaysaa wax loo yaqaano some group of disease cudurro qaarkood oo ku dhici karo jiinka la xiriir wax loo yaqaano psychologicalka ayaa ku dhici karo oo tan aragna waayo inay isdilayaan markasta oo qaarkood oo suicide ay sameynayaan waxyaaba la midka ah ayuu ka dhacaa casharkiini kood marka maanta meesha ku dhigaamaysantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa inuu casharkeen labaad iyo waqti ugu soo horeeya insha allah thank you